إلا تاليا وحي كديدي إيطاليا أنا كما سوجد كولومبيا أما زامبيا دلكين هايو إلاليا الله وبركاته دمان أمد الصوماليات ميلو البجوغان وحلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan rabaa inaan idinku soo gudbiyo 10 gabdhood ee Soomaaliyeed ee ugu anshax xun ee ugu dhibaatada badan marba 10 ayaan idin soo gudbinayaa laakiin hadda 10 kan ayaan idinku soo hormarin doonaa waayo 10 kan waxa uu soo xushay in aan dadka tuso gabdhaha ugu anshax xun ee Soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaala waxaan rabaa inaan idinka bilaabo lambarka koowaad waa gabadhan Soomaaliyeed way isla qurux badan tahay horta marka hore waxay isku moodaa inay style sameynayso waxay isku moodaa inay asturan tahay waxay isku moodaa gabadha ugu quruxda badan ee Soomaaliyeed inay tahay laakiin gabadhan Soomaaliyeed maxaa u asturan hada maxaa qarsan maxaa noo qarisay dareenba male dumarka Soomaaliyeed maxaa isku waashay tan meeshan kaga bixinaa lambarka labaad waa tan fuusto naag haday marsan u buuran tahay awalba naag Soomaaliyeed iyadoo ahayd oo bilaa dareen ahayd haddana waxay ku darsatay fuustanimo meelay egtahay fiiri baraha bulshada waxay la soo wadaagaysaa fuustanimadeeda iyo anshax xumo ay la soo hortaagan tahay dadka Soomaaliyeed hadda qoftaan waxay dadka dhahayaan gabadhan muxuu ku haystaa way asturan tahay gabadhan halkay ka asturan tahay maxaa ka qarsan isha ka dar marka gabdhaha Soomaaliyeed waa qof talawaad ee ana baraha bulshada ku arkay oo ilaa noqotay qof anshaxeeda aad u xun yahay waxa ka daran lambarka 3 waa qof weyn ma ahan gabdhaha hadda 15 jirka ma la dhahayo aqligeeda ayaa yar lama dhahayo ma la dhahayo waa maskax yarta waa baby haday soo baxaysa waa qof weyn ugu yaraan dhowr 30 jir haddana fiir waxay dadka oo la soo hor fadhido luga amoodid fuusta caadiye ay dadka la soo hor fadhidaa noocaana guursanaysa waxay kugu dilaysaa daal mooyee wax dareen ay meesha ku haysa ma jirto awalba dumarka Soomaaliyeed hilib bay ahaayeen mahane dareen bartooda ma lahayn laakiin qaar wanaagsan way jiraan qaar sharaf lehna way jiraan ma dhahay dumarka Soomaaliyeed oo waa wada xun yihiin qaar Ilaahay dhowr waa jiraan oo nadiif oo ma sha Allah ah oo waxba aan ka qaldaneen hadda qoftaan weynama inta la eg dadka hortooda waxay la soo fariisatay waa 190 kiilo ibila dareen ka war waxaasa umada la soo horfarida lambarkan kala ku xiga ka sii daran gabadhan fiiri maxaa qarsan iskaabul maxaa u yeelad macnaa adduunka maxaa u yeel iskaabul fiiri waxa iska dhigaysaa qof dareen meel ku hayso oo dareen laho markii den laga damco oo maxalliska arrinta barnaamijka ma idin fasiraaye haddii laga damco qof waxay iska dhigaysaa dareen meesha ku hayso waxaan ku huwa naag Soomaaliyeed oo dareen leh oo ninka markuu casharka isku dhigayaan oo lisku bagayo ayadana casharka kulubadays waa hal iyo laba inkastoo had gabdhaha hadeer 14 jirada hadeer soo baxayo 2021 ka soo baxayo ay u badan yihiin dareenkooda uu okay yahay oo xoogaa jaahilnimadii laga baxay laakiin wixii ka horeeyo dhan waa finish wax ay la soo taagin mal waa hilib soconayo oo hortaada maray hilib kali muxuu taraa hadda tan waxay iska dhigaysaa naag oo wax isku hayso dareen laho waar nooc ragga daaliya oo waxba aan isku hayno zero waxa ka sii daran hajiidan hadeer soo galayso lambarka 5 ayaa ka sii daran waxay isku haystaa inay asturan tahay dadka qaarkood waxay dhigi doonaan gabadhan way asturan tahay wuxuu ku haysto waa khalad laakiin wax ay asturan tahay male war buush may cunti asdee buush ama ciid may cunti asdee war horta waxaan xalaa la soo sii qofta xalaal lagu soo kori laakiin xalaalnimada lagu soo kori maxay taraysaa wixii badeeco Ilaahay siiyay ay bandhigaysaa war calafkaaga cunaysaa isqariyo is asturo caadi iska dhigo waad helaysaa nin adiga sidaan kugu rawaad helaysaa caadi iska dhig walaal waa qofta aan la yaabay waxay dadka inay qaladay rabtaa waxay iska dhigaysaa naag asturan laakiin asturnaa meesha uma taal wax asturan ma la iskaabul ay rabtaa inay indhaha ka soo rido iskaabulo waa loo soo dhigtay dib weey inay qaba iskaabulo Ilaahay idin soo ordo aniga waxa laba xidig laan horta baan idin sheegay laakiin iskaabulo ninkii waxaan kale markuu arko iska oyna maxaa saan liigu gala ayaa qaladka gali isku jira
waxaa amala iska joogaan oo ummadda waalay waxay iska dhigaysaa naag asturan naag waxay iska dhigaysaa oo jaba degan ku jirto laakiin hilib keli wax ma taraayo war cad baa tii mahane dareen meesha kuma haysan dumarka Soomaaliyeed tanaa ka sii daran xaajiidana ka sii daran waa kan wax maanta aniga asturan mala qoftaan hada cabirkeedo dhan waa u jeedna maana baag waxa malaysa saabuun saarti caaga maxalli jir galaaska biyaha waa saarne maanta inay la soo wareey hadhooti marka agta soo marto waa ka degsanay macna wax ka qarsan ama ka asturan male marka naaga waxaan la yaabaa Soomaaliyeed waxay moodaan asturnaanto dhan madaxa kali inuu yahay madaxay ku soo daboolaysa baag waa banaanku ku yaala dhaxdii intay la egtaa u jeedaa wax dhan macna horaadkii wax walbo caadi ugu jeedaa macna marka wax ku qarsan male walaashay waxaan ku leeyahay Ilaahay ka baqo is astur anagana indhaha naga soo ridin xaajiidana ka daran kulay dadka dibadda jooga inay tahaan u maleena xaajiidan dadka dalka jooga ilama eka laakiin qoftan wuxuu ku darsatay madaxa qaybta horta in maxaa la jir fashion ahaan loo baneeyo baag qurux badan oo maanta oo qaloocan oo saabuun saar ama galaaska asaaran karti biyaha horta ma lahan laakiin iyadu waa isdhiboysay xagga dambe kaamirada iga aadi leedahay iskaabulo aan dhigaha ka garaace iskaabulo waan ila soo galay iskaabulo wax idin qarsan male haween iyo maalin sariirta ay saariin ay ka soo dhacaan ama furaashka ay jiifaan ay kala jaraan iskaabulo dhibkaas inay u geystay gabdhaha Soomaaliyeed u geysteen markii lacag la isku yimaadane raggaas la daalay maan meesha waxay ku hayaan male adigu waa daashi dawaal wabiya gashay dawaal bada gashay saas ay tahayna wax ay ogtahay male xanjay korkaaga ku cunaysaa dareen male xaajiidan yara ka daran xaajiidan yar ay hadda soo galeys wargabadha waa qurux badanta Ilaahay qurxu siiyay laakiin qurxdeeda qiimo ay ku fadhido oo maanta noo muuqata male tan oo kale nina soo doonaa lagu leeyahay lacag fara badan laga bixinaa maxaa u qarsan maxaa u asturan gabadhan hadeer waxa ay dhii doontii madaxeedu waa daboolan yahay gabadhan hadda maxaa qarsan waa gabar yar waa gabar qurux badan laakiin quruxdeedu waxaa ka roon wax walba adduunka yaala igu xunta hadeer xaajiidana ka daran kulay dalka inay joogto inay dibadda joogto ma garan karee laakiin naagaha ugu dareenka yar waa naagaha noocan hadii aad aragtid naag hadda aragtid oo fuusta la eg ama u dhow naag maaha ha isku la goyni awalba naag Soomaaliyeed ay ahayd oo bilaa dareen ah oo aqas ah iyagoo aqas oo bilaa dareen oo infection soconaya markaad guursato naag Soomaaliyeed xanuun dhawr xanuun la qaadaysa u fiirso naag Soomaaliyeed markaa guursatid dhawr xanuun iyo dhabarka leega hayaa iyo indhaha xoga ku bigbigleena adaa yaa way macna dabka ma ka dhacsanaysa naag Soomaaliyeed noocaas marka isaga dulqaata xaajiidana ka daran kulligood xaajiidana iskoor ku dhigtay lambar 10 waxaan gadaal u mariyay waxa way 10 badan waa qoftaan wallahi billahi tal horta ninkii horta agtiisa ka soo kacay horta naag horta jir uu macna oo ku baashaalo waa haystaa laakiin baagan ad umalaysid qof bini'aadin in la duuduubiyo la geliye oo qof xirxiran inuu ku jiro amoodid laakiin walaalay dareena loo baahay naagta si kasto jir qurux badan u leedahay hadaysan dareen lahayn naag ma marka xaajiyadan oo Soomaaliyeed hadda maxay ka damacsantaa inay saan noo gashay macna anaga inay oohin nagu dishmeyrta macna iskaabuliyaasha meyrta inay bog war anagoo xaasay ay wareer nagu xiraysa wareersay nagu xiraysa walaalay naga dhaaf yaqsaa yaqay naga dhaaf wani tuugana naga dhaaf ha wassalaamu calaykum quruxdeeda saan isi ka darna oo falanqeyn doona insha Allah isoo dhig anana waa ku soo falanqeynaa